hadliya maxamud muuse oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga u ciiday gobolka Towdheer oo waraysi gaar ah siinaysay telefishinka Sahan ayaa ka hadashay muuqaalo maalmihii u dambeeyay oo dhex wareegayay baraha bulshada oo ku saabsanaa dumar isticmaalaya mukhadaraadka noocyadiisa kala duwan. hadliya maxamud muuse waxay hoosta ka xariiqday in dhaqanka iyo diinta suuban aanay arrintaasi ku wanaagsaneen isla markaasina ay wax u dhamayso sharafta hablaha Somaliland. waxay ugu baaqday xukuumadda Somaliland in si degdeg ah ay tallaabo uga qaado telefishinka baahiyay muuqaaladaasi. sidoo kale waxay sheegtay in haweenka Somaliland gabi ahaanba arrintaas ay mudaharaad ka dhigi doonaan. annagu haweenahan haddaan nahay hooyooyin baan nahay hablahan annaga dhalay waxay nagu tahay fadeexad iyo dib weyn. waxaanan halkaa ka arkaa inay tahay arrin la soo abaabulay oo lagu fadeexadaynayo haweenka Somaliland. madaxweyne hadayarsanin arrintaasi Somaliland dhaqan iyo hiddo uma laha, mana u malaynayo marfash dumari inuu jiro oo qayla in marfash la sameeyay inuu jiro malayn maayo. marka wax dawladda iyo dalka iyo dadka iyo haweenkaba lagu ceebeynayo weeye. waxaan oran lahaa waxa soo duubay ee meeshan soo abaabulay ee ka dambeeyay waa inan taawariyaha wixii ay uga dan lahay iyo abaabulkay samaysay iyada laftigeega duubaha iyo TV-ga iyo tafadiraha intaba in la noo soo xidho ayaan doonaa maxkamadda la taagan. waxaan kaloon ku dari lahaa haweenka Somaliland dhaqan iyo hiddo uma laha waxyaabaha qaar, fadeexadna dhaqan iyo hiddo uma laha. waa la yaqaanaa Somaliland waa dad dhaqan leh, dumarkooga iyo hablahooga waa dad dhaqan leh. manihin annagu wadamada kale ee gaaladu joogto ee waxaan dhaqanka u yahay. waxaanu nahay dad islaama, waxaanu nahay dad dhaqan leh, waxaanu nahay dad hiddo leh, waxaanu nahay dad ka awow islaama. marka waxaan oran lahaa arrinta in wax laga qabto. waxa kale oo fariin u diri lahaa wasaaradda diinta iyo awqaaftu inay arrinta daba gasho oo fadeexada lagu fadeexadaynayo dalkii inay ka daba galaan. wasaaradda diinta iyo awqaaftuna daba gasho, xukuumaduna daba gasho, xeerarka sharciga u waafaqsan laga qaado. annagu ka haween haddii madaxweyne aad noo soo qaban weydo annagu mudaharaad baanu ku dhigaynaa, qacan baanu u qaadaynaa, waanu ku mudaharaadaynaa, waanu jajabinaynaa. antana waxaanu leenahay maxkamadda la noo soo taago. Shucayb Xasan, telefishinka Sahan, magaalada Burco.